magaalada muqdisho ee caasimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka jira internet la'aan haddaba internet la'aantaasi markii la fiiriyo isticmaalka dadka bulshada Soomaaliyeed ay isticmaalaan faa'iidada iyo dhibaatada uu internetku u leeyahay maxay tahay warbixin arintaasi la xiriirta waxa eegaya Maxamed Xuseen Axmed daacad oo muqdisho warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya maanta inta badan waxaa ka maqnaa internetka shirkadaha qaar ay bixiyaan waxaana shirkadaha bixiya internetka macaamiisha ay la wadaageen inay jiraan cilado yar laguna howleeyahay hagaajinta ciladan taas oo jirta ayaa haddana internetka waxaa loo arkaa inuu yahay mid xilliyeed uu maqan yahay dhalinta intooda badan ay aadaan goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka injineer Awil Jaamac oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in internetku yahay dhibaato dhaxtaala qoyska waxa weeye caruurihii way ku baabeen waxba ma baranayaan waalidkii ma ixtiraamayaan waxaan anigu ku ilaahdaa qof joogo aan lala hadlayn oo qof maqal lala hadlayo baan anigu ilaahdaa qof jooga oo aan lala hadlayn qof maqalna lala hadlayo waa hal xiraale waa internetka weeye waa qof ku jira maanta adigu haddaad dul taagan tolaa assalaamu calaykum ilaa kuma hadlayo marka waxa weeye bahalkan qasaare fara badan ayuu Soomaaliya in lagu soo daayo ma ahayn waqtiga kan xiriirka waalidka iyo xawlka aad buu ugu liitaa caruurtu kuma maqlayso waxba uu dirsan kari mays inay joogaan guriga iyo in kalena ma garanayso waa dad maalintiina jiifa habeenkiina soo jeed habeenka dad guriga fiirto guriga meel walba qol walba qof baa goon u haysto gaara bidhaan way waxaad moodaa gaara bidhaan baa la yiraahdo qof waliba ay goon u iftiimaya wax wada hadlayo guriga joogana ma arkaysid ya laakiin maalintii waa la jiifaa way qofka habeenkiisa u isticmaala maalintii noloshu waa ka harayo faa'iidada internetka uu leeyahay dhalinta Soomaaliyeed waxa ay tahay ayaan weydiiyay Axmed Maxamed Cabdi oo kamid ah dhalinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho طبعا hadii looga faa'iideysto dhinaca wanaaga waxna waa laga baari karaa oo research baa lagu sameyn karaa cid kasto wax aqrida wuxuu sahlayaa si yar oo fudud inuu wax ku baaro wuxuu rabay uu mawduucu rabay si fudud buu ugu helayaa طبعا hadii aad rabtid dhinaca Facebook iyo magaranaysa social media dhinaca kale waxaad uga faa'iideysan karaysaa communication oo kale si fudud qof aadan hadal idin ku kala bogateen saacado iyo daqiiqadoba buu sahlayaa inaad in yar iyadoo farjiiba aad u heli kartid qofka isagoo masaafo aad kaaga fog jooga dabcan oo aydin telefoonka gacanta ku xiriiri karteen wuxuu ku sahlayaa inaad markaa si fiican u kala hadal bogataan isticmaalka internetka ayaa hoos u dhigay shaqada dhalinyarada wuxuuna geliyaa mashquul fara badan taas oo keentay in xilliyada habeenkii ay ku dhafraan dabadeedna ay shaqooyinka ka habsaamaan waqti dhumis iyo dhibaatooyin badan buu leeyahay iyo dhafar bilaa micno ah haddii ilaahay ku roon yahay habeenkii oo dhan waxaa laga yaabaa adigoo wax aan natiijo lahayn waqtigu kaaga dhumo subaxina aan macnaha asaaga si u dareeraan ama ay u shaqo tagaan aad u shaqaysan karin isbedel baa naftaada ku imaanayso isla maalinkaas iska dareemaysaa waxaad dareemaysaa shaqada meeshii hadda aan u bajaajta aan wataa subaxii meeshaan ka soo kici jiray habeenkaan isticmaalin aan markaas salaada tukada hore u socon jiray waxaa laga yaabaa habeenkaan asagoo ku dhafray inaaba 3 saac iska gaaro macnaha ama 4 saac maalinimo ama 5 saac maalinimo oo geliga dambe kaliya aad shaqaysid marka dhibaatooyin badan uu leeyahay waayo qof xalay soo jeeday ma shaqaysan karo subaxii ardayda ayuu aad ugu wanaagsan yahay wuxuuna ka saacidaa waxbarashada inkastoo waqtiga oo dhibaato ku yahay sida uu sheegayo Abbas Cabdi Siyaad aniga damowta wata internet oo macnaha jaamiciyana waa mafahant oo jaamacad dhameeyay sida sanadkan marka internetka waxyaabaha oo faa'iidada hadda kormar uu leeyahay waxa kamid ah anoo mootida wato oo khamiis jimcaynta badan oo jaamacadda success ku ahay haddana internetka ay fududeynay wax walba oo casharada jaamacadda ay bixiso kooban inaan uga faa'iideysto anoo jaamacad tagay inaan meeshii kala socdo aad way faa'iidada soo leeyahay lama soo koobi karo faa'iidada uu internetka u leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed balse waa hadii loo isticmaalo dhanka wanaagsan Maxamed Xuseen Axmed RTN Muqdisho